kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo la soo badbaadiyay intee uu leeyahay khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday mid kamid ah hoteelada ugu caansan magaalada Muqdisho haddaba yaa kamid ah saraakiishii caawa laga soo badbaadiyay qaraxyadaasi xogihii ugu dambeeyay xaalka caasimadda oo ah mid kacsan ayaan idin soo gudbin doonaa kooxda al-shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo war ay ka soo saareen qaabka uu dhacay weerarkeena kalena waxaa kamid ah Axmed Madoobe oo soo bandhigay kaalinta ay beesha caalamka ku yeelan doonto shirka ka furmaya magaalada Dhuusamareeb haddaba miyay beesha caalamka go'aaminaysaa doorashada dalka oo uu khilaaf hareeyay xog ayaan idinkaga haynaa madaxweyne Farmaajo oo soo saaray qodob ka hor imaanaya matalaadda gobolka Banaadir laga siiyay xubnaha aqalka sare iyo dawladda federaalka oo weerar afka ku qaaday Kenya ugana digtay inay sii wado faragelinta ay ku hayso gobolka Gado qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen axada 13 bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2022 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxa caawa kacsan xaalka magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii gabaldhicii ee galabta qaraxyo isxigay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka la yiraahdo Afrika oo ku yaala isgoyska kilometer 4 ee magaalada caasimadda ee Muqdisho qaraxyadan ayaa waxaa markaasi lagu weeraray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugnaa sida la sheegay hotel Afrika ee magaalada Muqdisho haddaba waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax xoogan iyo weerar lagu qaaday hotelka Afrika ee ku yaala agagaarka isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada aada garoonka diyaaradaha qaraxa oo markaas ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay iyo sidoo kale qof soo miidaaniyay ayaa waxaa la sheegay in lagu dhuftay albaabka hore ee hotelka Afrika waxaana kadib xigay laba qarax oo kale iyo rasaas xoogan oo ay isweydaarsanayeen kooxihii hotelka soo weeraray iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa intaas kadib gudaha hotelka galay koox hubaysan kuwaas oo dagaal markaasi ku qaaday ciidamadii halkaas ku sugnaa iyo waliba sidoo kale saraakiishii ku sugnayd iyo ilaalada hotelka iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee joogay bar u dhow hotelka la weeraray warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac balse ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah afayeenka booliiska Soomaaliya Saadaq Ali ayaa sheegay in dad badan laga soo badbaadiyay hotelka balse uu rumaysan yahay in uu khasaare nafeed jiro wuxuuna intaas ku daray in uu howlgalka wali markaasi socdo qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa waxa markaasi uu qornaa sida tan galabta baarakow 12 ayay argagixisadu weerartay hotel Afrika oo ku yaala agagaarka kilometer 4 wadada aada garoonka diyaaradaha aadan caddeed ciidanka booliiska oo si degdeg ah goobta ku gaaray ayaa gudaha u galay hotelka si dadka looga badbaadiyo waxaa laga badbaadiyay inta badan dadkii ku jiray iyaga oo bad qaba walina howlgalku waa u socdaa ayuu yiri afayeenka booliiska Soomaaliyeed Saadaq oo isagu markaasi goor dhaweed qoraal soo saaray dadka la soo badbaadiyay ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan ama ay u badan yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana kamid ah saraakiisha laga soo badbaadiyay weerarkii caawa General Inda Cade oo isagu ku sugnaa hotel Afrika ee magaalada Muqdisho saraakiisha kale ee la soo badbaadiyay waxaa kamid ah laba xidigle saraakiisha kale ee la soo badbaadiyay waxaa kamid ah General Laba Afle iyo Xuseen Gole oo ah milkiilaha hotelka waxaa ciidanka sidoo kale ay ka soo badbaadiyeen hotelka odayaal la sheegay in uu shir uga socday goobta weerarka lagu qaaday wali waxaa laga maqlayaa gudaha hotelka sida wararka qaar ay sheegayaan rasaas xoog leh waxaana dagaalamaya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada hotelka gudaha u galay ee weerarka soo qaaday kooxda al-shabaab waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay in halkaasi ay ku beegsadeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan saraakiil ciidan hotel Afrika ayaa kamid ah hoteelada waaweyn ee ay degaan dadka dibadda ka yimaada ayna tagaan dadka markaasi caadiga ah wararka ayaa sheegay in hotelka uu ku sugnaa xilliga uu qaraxa iyo weerarkuba ka dhacayay sarkaal kamid ah ciidamada dawladda iyo markaasi qaar kamid ah ilaaladiisa wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo hotelka ayaa waxay sheegayaan in haatan wali ay ka dhex dagaalamayaan dableedii weerarka ku soo qaaday
iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cas loo yaqaano. dowladda Soomaaliya weli faahfaahin rasmi ah kama aysan bixinin, balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isku dayaya inay markaas iyagu soo afjaraan weerarka xubno ka tirsan Al-Shabaab ay caawa ku soo qaadeen Hotel Afrique ee magaalada Muqdisho. hotelkan ayaa sidoo kale waxa markaas uu caan ku yahay in ay ku shiraan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wixii ku soo kordha wararka qaraxyada caawa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weerarka lagu qaaday Hotel Afrique waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe insha Allah. imikana madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta magaalada Kismaayo waxa uu kula kulmay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire James Swan iyo madax kale oo ka socotay hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay. Axmed Madoobe ayaa James Swan waxa uu ku wargeliyay mowqifka Jubbaland ee ku aadan arrinta gobolka Gedo iyo sida ay doonayso in Jubbaland lagu xaliyo. wuxuu sidoo kale kala hadlay mowqifkiisa ku aadan doorashada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo madax kale oo ka socotay hay'adaha qaramada midoobay sida UNHCR, WFP, hay'adda FAO iyo WHO ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. kulanka madaxweynaha oo ay ku weheliyeen madaxweyne ku-xigeenka koobaad Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda sida wasaaradda arrimaha gudaha, caafimaadka, waxbarashada, kalluumaysiga, beeraha ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo, amniga iyo arrimaha la xiriira doorashada iyo sidii markaasi heshiis rasmi ah looga gaari lahaa hanaanka doorashada Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland ayaa ergeygaarka ah ee qaramada midoobay uga mahad celiyay qaabka uu dadaalada ugu wado arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida uu doonayo in dalka markaas ay ka dhacdo doorasho nabdoon. sidoo kale Axmed Madoobe ayaa waxa uu markaas ka dhawaajiyay in beesha caalamka ay ka qayb qaadanayso sidii shirka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb uu noqon lahaa mid markaasi lagu wada heshiiyo arrimaha looga wada hadli doono. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu markaasi soo saaray war-saxaafadeed ka kooban 5 qodob. war-saxaafadeedkan ayuuna hore u soo saaray madaxweynaha waxaana lagu iclaamiyay shir lagu xalinayo arrimaha ku horgudban doorashada Soomaaliya kadib kulan uu la qaatay beesha caalamka. qodobadaas uu soo saaray madaxweynaha waxaa ka mid ah qodob si cad uga hor imaanaya kuraastii 13 ahaa ee aqalka sare laga siiyay gobolka Banaadir, kaasi uu toddobaadkii la soo dhaafay uu saxiixay madaxweynaha. qodobka ee ku jira war-saxaafadeedka ee burinaya kuraasta aqalka sare waa qodobka afraad ee war-saxaafadeedka, kaasoo ah shirka wada tashiga ee madaxweynuhu isugu yeerayo madaxda dowlad goboleedyada. waxaa saldhig u ah heshiiskii 17 Sebtembar 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka. qodobkan wuxuu soo koobay waxyaabaha shirka ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb looga hadlayo, waxaana markaasi saldhigga shirka wada tashiga ah lagu sheegay heshiiskii 17 Sebtembar ee madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ku gaareen Muqdisho. markii heshiiskaas lagu laabto kuma jirin arrimaha matalaadda gobolka Banaadir oo uu dhowaan ansixiyay madaxweyne Farmaajo sida cad, maadaama uusan ku jirin shirkii horey loo gaaray ama heshiiskii horey loo gaaray laguna aan soo hadal qaadin marka laga tago caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. waxaana qodobkan uu markaasi caqabad kale ku noqon doonaa shirka la filayo in markaasi magaalada Dhuusamareeb ay ku yeeshaan madaxda Soomaalida oo uu ugu weyn yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi oo kormeer ku sameeyay fariismaha ciidanka xoogga ee duleedka degmada Beled Xaawo ayaa mar kale dowladda Kenya ku eedeeyay in ay colaad ka horinayso gobolka Gedo. taliyaha waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay maleeshiyaad ku ururinayso duleedka Beled Xaawo ee gobolka Gedo iyaga oo doonaya inay carqaladeeyaan amniga ka jira gobolkaasi. waxa uu ku eedeeyay guddiga xaqiiqa raadinta ah ee ka tirsanaa IGAD ee dhowaan gudbiyay warbixinta in ay iska indhatireen xaaladaha ka jira gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in warbixintaas ay tahay mid madaxweynaha Jabuuti uu ku doonayo in uu ku dheeraysto xukunka. dowladda Soomaaliya ayaa iyadu markaasi hore Kenya waxa ay ugu eedeysay in ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo, iyadoo maleeshiyaad ay ka soo abaabushay gudaha Kenya u soo dirtay magaalada Beled Xaawo si halkaasi ay weerar uga fuliyaan. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.